la duuduubo bay yidhaahdeen shantan baa asalka ah. ka ugu horeeya waa xubu nisaa, waa kalgacalka la isu geliyey rag iyo dumarka dhexdooda. ilaa xad uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala alrijaali min annisaa. gadaashay kama tegin buu nebigu yidhi wax kaga khatar badan rag dumar xidhiidhkooda, wax ka khatar badan. dhasha jacaylkeeda waa min alfitra, abuurka ilaahay subxaanahu watacaala uu bini aadamka ku abuuray. sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamaya in iyaduna mararka qaarkood xadkeeda dhaafi karto. yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum. ka saddexaad ee aayaddu tilmaamayso waalqanaatiir almuqantarati min aldahabi waalfida. alqanaatiir waa jamcu qintaar. qintaarkana culamada qaarkood wasni ka mida waxa ayay ku tilmaamaan 1200 oo mithqaal, 1200 oo waqiyadood. qaarkoodna waxay dhahaan waa jamci alkathiir, almaal alkathiir, xoola tiro badan. almuqantara ay almujamaca, xoolaha tirada badan lee la ururiyey ee dahab iyo fida ah, waa maal dhammaantii markaa. waatuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jacaylka loo qabo xoolahaasi inaanu bini aadamku ku kaaftoomin inta uu u baahan yahay, inuu is-ag dhigdhigo inuu jecel yahay. ilaa xaduu nebigu yidhi haddii bini aadamku uu haysto waadiyan min dahab, dooxo dahaba xataa hadduu haysto, wuxuu baadi dooni lahaa buu nebigu yidhi dooxo labaad oo dahaba. jacaylka loo qabo xooluhuna waa waxa keena buu ka mid yahay mashaakilka ugu waaweyn ee dunida maanta aynu ku noollay. waxay dhahdaan aljashac waalhalac. inta maalka qabtaa sida ay u mamantahay baa ka mida bay leeyihin broblemada ugu waaweyn ee dunida ka jira dadka xoolaha leh. waana sabab dagaallo badan oo maanta dunida ka jira u sababa. oo dagaallada dunidu in badan waxay isu taagi waayeen dowladaha khaniga ah baa raba inay socdaan. warshadaha hubka iyo raggan le iyo waxaan soo saara oo master dhaqaale uu yahay baan rabin dunidu inay nabadi ka dhacdo. waa iska hadaltiro dunida salaam alcaalami baa laga doonayaa, cidina salaam ma rabto. waayo rag baan dantooda ku jirin oo warshado iyo qalabo u samaystay ay dhaqaale ku helaan. qodobka afraad ee meesha ku qorani waa ziina alkhayl almusawama. fardaha ama tiro waxay ka qabaan musawama saa'ima ah oo kuwa la raaca ah, ama musawama ay almuzayana la qurxiyey, ama musawama tii la suntay ee midabada kale jaadka lahayd. saa doontaba u fasir. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha waziina. farduhu dee dunida waxay ka mid yihiin waxay dadka maalqabeennadii dhaqdaan oo ninku inuu hantileeyay tilmaamta ama qurux loo haysto. waagii hore dee mala waaba la fuli jiraye. iminka maanta markaan soo socday waxaan arkayay fardihiioo gaadhi lagu wado, iyagaaba la raraa iminka oo quruxdeeda iyo orodkeeda iyo waxeeda iyadoo la ilaalinayo, iyadaaba gawaadhi gaara loo sameeyo oo lagu raro. ziinaduna dee maanta waa ogtiin fashionka iyo modelada iyo asyaadan iyo waxa kan iyo dadka sida maankoodii loo gadayba. kab calaamad yaroo saxani ku taalo, mara dhinac yar ka dilaacsan. waxya dadku modelka dambe maxaa u dambeeyey, xataa mobilkeenu sidana waa ka dambaynu raadinaynaa, wax ku jirana la garan maayo cusub. waa ziinadaas baa inta badan laga rabaa. ka shanaadee meesha ku qoranina waa shahwat albatn, alancaam waalxarth, wixii la cunayey ama xoolo ahaa, geel iyo lo iyo adhiba wixii la cunayey xalash ahaa, ama xarth beer iyo wixii ka soo baxaya. walancaama khalaqahaa lakum fiiha dif'un wamanaaficu waminha taakuluun walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun. waxay culammadu yidhaahdaan shantan shay ee suuraddani sheegtay bay yidhaahdaan waa usuul shahwaat, waa human desireka waxa ugu badan. waxaase ka sii farcamaan
shahwaad kale oo tiro badan oo meelo kale qur-aanku uu ku tilmaamayo su-aasha koowaad waxay tahay limaada awjadana allahu fiina ashahwa maxaa ilaahay inoogu abuurayba